Gabre Mikail waa kuma ninka magaciisa uu ku xidhan yahay colaadda wuxuu ahaa dagaalyahan hore oo jabhad ah oo ka jara ciidamada Itoobiya isgaarsiinta Debretsion Gabre Mikail haatan wuxuu horseed ka yahay dagaalka looga soo horjeedo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo ay ku dirirayaan gacan ku haynta gobolka waqooyi ee Tigreega oo lagu tilmaamay ubuucda qarankaasi Itoobiya Debretsion waa hogaamiyaha xisbiga TPLF ee ka taliya gobolka Tigreega ee sida lama filaanka isku seegeen Abiy Ahmed isagoo markaasi uu guursaday oo ilmo yar dhalay ayaa Debretsion waxa uu ka tagay waxbarashadiisii jaamacadda Addis Ababa sanadkii 1970 oo uu ku biiray TPLF si uu uga qayb galo dagaalkii 17 sanadood socday ee ururka uu kula jiray xukuumaddii dhergiga ee uu hogaamiyaha ka ahaa Mengistu Haile Mariam wuxuu wasiir ka soo noqday xukuumadda markii talada laga tuuray dhergigii ee talada ay qabteen isbahaysi xisbiya TPLF ay awood ugu badan lahayd wixii ka horeeyay inta aanu Abiy hogaanka dalka Itoobiya la wareegin sanadkii 2018 saaxiibkii oo ay aad isugu dhow yihiin jaalna ahaayeen oo la yiraahdo Alemayahu ayaa waxa uu sheegay in markii labadooduba ay tababar military ku dhameysteen dhulka buuraleyda ee Tigreega uu ogaaday kartida farsamo ee saaxiibkii oo isna kula taliyay taliskii TPLF in Debretsion lagu daro ururka farsamada Alemayahu waxa ay la ahayd arrin maalgal ah in Debretsion lagu daro ururkaasi maadaama uu ahaa qof maskax badan laakiin afgaaban oo ciyaal magaalo ah kuna kacaamay shire oo haatan ay guul darro weyne ka soo gaadhay hogaamiyaha Tigreega maadaama ay ciidamada federaalku gacanta ay ku dhigeen magaaladaasi wuxuu ka dhashay qoys masiixiyiin oo tadakis ah waxaana loo bixiyay Debretsion oo micnihiisu yahay buurta Zion halka magaca aabihiina yahay Gabre Mikail oo micnihiisu yahay adoonkii waliga la yiraahdo Mikail markuu dugsiga hoose ku jiray wuxuu soo aruursan jiray bateriyada la daadiyo raadiyaha iyo qalabka elektrooniga ee la tuuro markaasuu hagaajin jiray iyadoo oo aan magaaladoodu lahayn leed ayuu gurigooda u sameeyay leed koronto ku shaqeeya ayuu yiri Alemayahu oo waayada hore xasuusan Debretsion wuu ka soo dhalaalay qaybtii farsamada ee TPLF ee lagu daray waxaanu door muhiim ah ka ciyaaray dhismaha awoodda sirdoonka TPLF ee dhageysiga qalabka isgaarsiinta ee ciidamadii Itoobiya iyo sidoo kale in la jaro isgaarsiintooda taarka arintaasi waxay noo sahashay in aan guuleysano sababtoo ah dagaalyahanadii xorriyad u dirka TPLF waxa ay ka warheli jireen dhaqdhaqaaqa ciidanka Itoobiya intaanay howlgal bilaabin marka taarkooda isgaarsiinta aanu jarno maysan awoodin in ay xiriiraan marka weerarka lagu qaada ayuu yiri Alemayahu si uu xifadiisa u sii kabciyo Debretsion wuxuu Talyaaniga ku tagay baasaboor forgery ah ama been abuur ah markuu ka soo noqdayna wuxuu dhisay idaacaddii ugu horeysay ee TPLF yeelato oo la yiraahdo Dhimisi Wayane oo micnaheedu yahay codka kacaanka nin kale oo ka tirsan dagaalyahanadii jabhadda TPLF oo magaciisa la yiraahdo Measho ayaa isna xasuusan siday habeenkii buuraha u fuuli jireen marka ay ogaadaan in aan basaasiinta dawladdu arkayn si ay buuraha dushooda ugu soo rakibaan anteenooyin habeen ayuu gabi ka dhacay aniga iyo jaala kale ama saaxiib kale ayaa noloshiisa badbaadinay waxaan had iyo jeer isweydiiyaa haddii uu dhiman lahaa maxaa dhici lahaa idaacadaasi ma hirgeli lahayd ayuu yiri Measho haatan Dhimisi Wayane waxa ay qayb ka tahay warbaahin afaf badan ku hadasho oo xarunteedu tahay magaalada madaxda Tigreega ee Maqale waxay baahisaa warbixinada ay TPLF ka soo saarto iska horimaadka ama dagaalka ay kula jiraan militariga dawladda federaalka idaacadaasi waxay tan iyo intii colaadu ay bilaabatay baahinaysay faalooyin aad loogu dhaliilaya Abiy Ahmed موجودها إذا عدا سي أي كهذا الشو أي الحري لكن دمسي وينه مالين كدب هودا أي كسر نقطي دبرسيون جبر ميكائيل إيا أبي وحد موديس إن أي صاحبيهن بلوجي مركي رئيس الوزراء حلك قبطي لبدي يكون يسديد يتمنكي
hogaamiyahan Tigreega xataa wuxuu abaabulay xaflad farxad iyo rayn ka muuqato oo lagu soo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha oo ka dhacday caasimadda Tigreega ee Maqale. Tigre waa halka taariikhda dalkeena samaysa, waa gobolkii lagu jabiyay shisheeyihii soo duulay oo ay ku jiraan Talyaaniga iyo Masaaridu. Itoobiyadan casriga ahna waa ubuucdeeda, ayuu yiri Abiy Ahmed 2018. Debrecen dhankiisa wuxuu amaanay dadaalka nabadda ee ra'iisul wasaaruhu la bilaabay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ee lagu soo afjarayay xaaladii nabadda iyo colaadda aan ahayn ee dhaxtiilay labada dal tan iyo dhamaadkii dagaalkii ay xadka isku laayeen ee 1998 ilaa 2000. Abiy wuxuu tagay Eritrea oo wuxuu la kulmay Isaias sanado badan oo arrintan oo kale ma dhacdo ahayd. waa arrin weyn sababtoo ah waxay fursad weyn u abuuraysaa dalka, ayuu yiri Debrecen markii heshiiska la gaadhay. laakiin jaalnimada ama saaxiibnimada ay muujiyeen waxaad moodaysay in ay dhalisay xiisad isa soo taraysay oo labada nin dhex taalay. Debrecen wuxuu lahaa han ah inuu isagu noqdo ra'iisul wasaaraha, waxaase kaga guulaystay Abiy doorasho uu qabtay isbahaysigii talada hayay 2018. waxaan ku idhi nin aan bislayn baa tahay, ma tihid musharax ku habboon xilka, ayuu yiri Debrecen oo waraysi siiyey wargeyska Ingiriiska ka soo baxa ee Financial Times sanadkii 2019. laakiin in lagaga adkaado doorashadaasi la yaab kuma ayn ahayn dadka, maadaama ay TPLF noqotay wax ku sidkan caburinta iyo musuqmaasuqa 27 sanadood ee ay siyaasadda dalkaasi awoodda ku lahayd. laakiin haatan wuxuu gunta uga jiraa colaad la sheegay in ay ku dhinteen 100 qof oo ay ku barakaceen 30,000 oo qof oo u tallaabay dalka dariska la ah Itoobiya ee Suudaan, sidoo kalena dhaawacay kaabayaashii dhaqaalaha muhiimka ahaa, wadooyinka iyo dhismayaasha gobolkaas oo sida qaramada midoobay ay sheegtay ah gobol sabool ah. Debrecen dagaalkan musiibo ayuu u arkaa, sida uu yiri Dede Desta oo ah khabiir ku takhasusay siyaasadda oo fadhigiisu yahay Mareykanka. laakiin wuxuu filayay in TPLF ay si adag uga soo horjeesanayso isku dayada Abiy Ahmed ee ah in maamul cusub loo dhiso Tigreega. TPLF waxa ay soo wada dagaalameen Eritrea oo waxa ay halgan kaga soo wada horjeedeen xukunkii dhergiga oo waaye aragnimo dheer ayay u leeyihiin dagaalka. laakiin dagaalku sidiisaba wuxuu u baahan yahay dad u heelan in ay dagaalamaan, waana waxa ka jira arrintaasi gobolka Tigreega, ayuu yiri Dede oo odorosaya in colaaddu ay daba dheeraan karto. hase yeeshee Abiy ayaa qudhiisa kalsooni ku qaba in uu ka adkaan karo TPLF oo Debrecen lagu soo ogo eeda khiyaano qaran iyo weliba in dastuurka dalka uu ku tuntay oo uu horkeeno cadaaladda. warbixintaasi daawadayaal dhageystayaal waxaan ka soo xiganay BBC-da. haatanna wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda dalka Itoobiya. jaamacadda Addis Ababa ayaa 9.1 milyan oo bir waxa ay ugu deeqday ciidan